وعليكم السلام. ويل 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 wasiirkii madaxtooyada ee habar jeclo ina xaaji xasan oo kala wareegay wasiirkii arrimaha dibadda ina biixiyoonis xilkii kadib markay isku afgaran waayeen arrintii siyaasadeed ee ka dhaxaysay habar jeclo iyo sacad muuse taasuu fashiliyey muuse bixi markaa xilkii maanta waan seexayaa buu leeyahay muuse biixiyoonis muxuu seexa waaba laga qaaday misaga waxbaayo inankii yaraa waa ka qaadee ee silaanya awoodda siiyey inankii yaraa ee silaanyi awoodda siiyaa ka qaaday ogeysiis maxamed biixiyo yunis wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan uu kala wareegay wasiirka madaxtooyadu arrinkii isna maanta lagoona sacsilaya waa arrin la yaab leh yaa makaag haddaanu somalilan nahay dee meesha ma xukunta habar jeclo iyo sacad muuse hadday isku haystaan wadabood garxajis wadabood arab wadabood habarmagaadladii kale waa isla yaaba aabbihin kuus isla yaaba maanta isku haysataan waan seexayaa buu yidhi ina biixiyoonis oo maxaad seexdaa ama inankii yaraa xirsaa kaa qaadee xirsa xaaji inaad silaanyaa kaa qaaday xukunkiibe muxuu seexaa muxuu iscasilay inaad silaanyaa ka qaadee xirsi baa ka qaadee wallaahi waa arrin la yaab leh faqash ma jecli somalilandna siday ku socoto meel gaadhi mayso maalinba reerka hays ayaa isburburaya wasalaama calaykum